السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدق كوها نوصن دادكنا هنونية دمان دادكا سوماليات برنامجك قفاعو كداوانا يا سومالي كنديان تيفي كندا جيسانا يا راديو بورمي CKMS 102.7 FM برنامجك قفاعو مانتو أمالين سبتيا bisha August 2025 waxaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay bishu tahay madaxweynaha waqooyi bari iyo ku-xigeenkiisa. waxa kale oo barnaamijka ku soo qaadanaynaa State Department-ka oo ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo talooyin madaxweynaha Soomaaliya bixiyay dadka gobolka Awdal, dadka barnaamijka meel walba ka dhageysanaya. waxa aad ogeydeen 2 sano ka hor August waqtigan isaga wixii ka dhacay laascaanood, dad fara badan ay ku dhinteen, isla markaana aad ogeydeen dadkaasi inta isku yimaadeen tashadeen ay leeyihiin Somaliland ma rabno. kelmadda dulmi waxay leedahay 2 macno: xadgudub iyo gardarro. iyadoo lagula kacay gardarro ay sheegeen Somaliland inay iyagu wakiil uga yihiin dalka Britishka oo gumaysigii ayagu wakiil ka yihiin. waxay noqotay dagaal in la galo dhulkooga xoreeyaan. maanta oo ay tahay bisha August 10 waxa lagu dhawaaqay maamul ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo waqooyi bari ah. maamulkan waxa madaxweyne ka ah Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye iyo ku-xigeenka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. waxa hambaliye soo diray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh, una hambaliyeeyay kulana dardaarmay midnimada iyo hoggaan wanaag. haddaba dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya waxa sidoo kale iyagana miiska saaran maamulka galbeedka, iyadoo oo magaca Awdal State aan la isticmaali jirin doonin. beelaha wada degana ay fara badan yihiin oo sida beesha Ciise iyo Gadabursi iyo beelaha kale. maamulkan oo isna miiska saaran waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya intaasoo jeer u sheegay Awdal in laga shaqeeyo midnimada iyo nabadgelyada in la adkeeyo. haddaba dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya waxaan baryahan aad haadahaynteedu u badnaa oo aad maqlayseen in Somaliland raga aqoon-yahana siyaasiyiin hadlaya ay ka hadlayeen ictiraafka Mareykanka. waxa State Department-ku ka hadlay bishan August iyaga oo wasaaradda arrimaha dibadda waxay mar kale ku celisay siyaasadda waqtigan dheer ku salaysan ee ku aadan Soomaaliya iyo sheegashada in ay aqoonsatay madax banaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, inay aqoonsan tahay madax banaanida dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana aanay jirin wax wada hadal ah oo u socda iyaga iyo Soomaaliya, iyaga oo ku tilmaamay Somaliland inay ka mid tahay Soomaaliya. waxa aan dadka la wadaagaya ummadda Soomaaliyeed, waxaad ogeydeen iyadoo waqti ka wanaagsan Somaliland soo martay, cid walbana ay ka mid ahayd Warsangari, Dhulbaahante, Gadabursi. maanta ay isku hareen 2 beelood inta dadka badan ee deegaanka ah. labada beeleedna maalin dhaweyd gobolka Awdal waxa lagu soo daayay ciidamo fara badan, iyadoo cabsi fara badan jirto dhaqdhaqaaqna uu aad uga jiro gobolka Awdal. waxa aan dadka la wadaagaya waxa noqday oo gaaray magaalada Boorame ugaaska guud ee beesha Gadabursi. waxa isagana shir soo socda ay ku tashanayaan beesha Gadabursi hadii la yiraahdo dalka gudihiisa iyo dibadiisa. waxa aan dadka Soomaaliyeed ugu celinayaa in State Department-ku wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay arrin ku saabsan midnimada ummadda Soomaaliyeed inay ilaalinayaan, in aanay jirin wax wada hadal oo u socda Somaliland iyo Mareykanka. waxa aan dadka Soomaaliyeed la wadaagaya mar walba waxa aan ku weynay Soomaali ku helimayno Somaliland. dadka reer Awdalna waxa loo baahan yahay sida talooyinka uu ku bixiyay madaxweynaha Soomaaliya inay ka shaqeeyaan midnimada, iyagoo milaysan iyaga iyo beelaha kale ee wada degan ilaalinayana nabadgelyada. waxa inoogu xiga maamulkani marka uu dhamaado sida aan filayno, iyadoo oo ay waqti qaadan doonto, laakiin in isna uu soo socdo maamulkii galbeedka oo loogu magac dari doono galbeedka. magacana kolley baaritaan aan ku hayno oon sheegi doono magaca uu noqon doono. waxa aan dadka la wadaagaya reer Awdal ee jecel Awdal State iyo dhammaan federaalka Soomaaliya intaba inaydaan quusan, dadkuna mar walba Soomaaliyeed walaalayaal ma kala maarmaan.
wadad isku midaba wadad isku diina wadad isku luqada Soomaali kuma noqon karto 1884 sidii Berlin loogu qaybiyo Afrika in haddana mar labaad laynaga faa'iideyso waxa aynu noqon karnaa mid inaga oo midaysan baynu adduunyada wax wada qabsan karnaa magaceena iyo sharafteena soo celin karnaa laakiin shakhsiyaad interest iyo dana gaar ay ka tahay dadka majority-giisa maaha iyagu cod ahaan hadaba dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya waxaan halkan hambalyo uga dirayaan oo ku adlaya dhammaan siyaasiyiinta aqoon-yahanada reer awdal madaxweynaha maanta lagu dhawaaqay maamulka la magac baxay waqooyi bari oo ah Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil dalkan oo aanu sideedaba wadaagno USP siyaasad muddo dheer soo socotay waxaan halkan uga hambalyeynaa inuu Ilaahay uu u fududeeyo culayskaas iyo madaxtinimada nabadda iyo wada hadalka iyo wanaag iyo khayrkana ay ka shaqeeyaan halka barnaamijka aad ka daawanaysaani waa Somali Canadian TV kana dhageysanaysaan Radio Borome CKMS 102.7 FM وأنا قلت فقط حامد سلطان علي علمي سلطان